mahadsantiin dhammaan kulankan iskugu imaana cawada teeda kaleete waxay muhiim u tahay horta iskugu imaano in aan ka hadalno cudurkan adduunka dhan saameeyay dad qaar way easy ka dhigtaan laakiin muhiimka waxay tahay in sanitation kala badiyo the only thing aan ugu badbaadi karno always prevention is better than cure inta cudurka kugu dhicin faasina iska prevent garayso fiican tahay so especially ciyaalka yar uu maxaa la cudurku fudud yahay iyo dadka waaweyn so marka meelaha public gathering sida government ay Uganda public gathering ka wala dhaafay iskugu imaanayo hal bil isfasaxay waxa muhiim ah qof gurigiisa inuu joogo oo iska ilaaliyo cudurkaasi ma ogaan kartid qofka qabay iyo qofka aqaan marka adiga banaanka baxdo so teeda kale tan marka adiga isku aragtid xanuun ama aad jiran tahay ina banaanka bixin muhiim way taas gurigaaga iska joogto because qofka markuu xanuunsan yahay ama uu maxaa la dareemayo asiga laftigiisa weakness way u fududahay cudurka inuu helo asiga laftigiisa because waxa kaliya oo ka difaaci karo immunity-ga jirkaaga waa marka immunity-gaaga loo u yahayna cudurku saaid u fududahay inaa hesho sida la dhahay hadda marka cudurka qaadid oo ku jiro kar period gaarayo 14 to 2 days oo period kadib aad fahmi kar symptomskiisa so marka it's very hard qof kasto ina dhahdo qofkaanita cudurka ma qabo so ina handshaking kala joojiyo taas muhiim waaye waxa wax baxaya wax period waay inta halaas waxa loo baahan yahay in laga taxadiro wax kasto oo handshaking gacmaha iska dhaqdid iska ilaalisid objective oo maybe oo contaminated qof kala taabtay amal so ina use karisid something oo cudurka dili kara taa inay taxta ina dhaqdo it's muhiim always ina gacmaha la dhaqdo cudur kasto ka difaaca not only coronavirus in la gacmaha loo dhaqdo cudur kasto waxa ugu horeysa gacantaada kugu imaada gacantaada oo nadiif ahayn oo sanitation ka fiicnaan cudur kasta qaadi kartaa marka laga gudbo coronavirus tan kaleetana ma ahan hada maanta qandho isku aragtay inaad dhahdo cudurka qaaday ama aad tiraahdo dawla dhahay periodka hadda ku jirno aad dhihi karno only cudurka jiro coronavirus waa laakiin ma ahan marka sometimes aad daal dareemaysid aad dhici karto ma ahan inaad tiraahdo maanta taayinaysa hay breathing difficult laftigiisa dad asthmatic ah jiro asina cudurku waa u fudud yahay la dhahay dadka asthmatic ay dadka pneumonia qabo u sahlan yahay cudurka laftigiisa laakiin ma dhihi karno qof walba oo maanta xanuunsan coronavirus uu qabo xataa hadii uuna u qabin laakiin waxa iskaga fiican yahay in always professional iska badiyo taasna waxa ka codsanaa ardayda meel walba joogta si holiday ay ku jirto in guryahooda iska joogaan ee banaanka bixin public gathering kan sida la joojiyay ayagan ugu faa'iideystaan taas